السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa cali caamir xasan mar kale kusoo dhawaada muuqaal cusub. waxaan jeclahay inaan ka hadlo waxa loo yaqaano vitamin B2 alif. vitaminska jirkeena aad ayay muhiim ugu yihiin dabcan. vitamin B2 alifna waa mid ka mid ah vitaminska ugu muhiimsan ama role model la dhihi karo vitaminada jirkeena uu isticmaalo ama u baahan yahay. vitamin B2 alif marka maxaa la yiraahdaa? waa mid ka mid ah nafaqada vitaminska ee jirkeena ka qayb qaato markii la sameynayo waxa loo yaqaano body building ama jirka in la qurxiyo oo cellskii jirka bini'aadamka inay yacni si fiican maxaa la dhahaa loo dhiso uga qayb qaato ayaa vitamin B2 alif la yiraahdaa. vitamin B2 alif marka haddii jirkeena uu ku yaraado maxaa dhaco? vitamin B2 alif deficiency hadday dhacdo waxa la yiraahdo maxaa dhaco? vitamin B2 alif jirkeena hadduu ku yaraado waxaa dhaca waxa la yiraahdaa headache, madax xanuun, qofkii inuu maxaa la dhahaa madax xanuun saa'id dareemo. labo in maxaa la dhahaa uu dareemo murqa xanuun. saddex inuu dareemo waxa loo yaqaano muscle pain, murqa xanuun. inuu dareemo maxaa la dhahaa waxa la yiraahdaa numbness, kabaabyo, qofkii jirkiisa uu kabaabyoodo. sidoo kale inuu dareemo heart rate, garaacii wadnihiisii oo siyaado ama hoos u dhaco, garaaca wadnaha maxaa la dhahaa isbedel ku yimaado. iyo in uu dareemo maxaa la dhahaa vision disturbed, araggii macnaha oo khalkhal ku yimaado araggiisii oo qofkii macnaha problem ku furmo oo araggii ama yaraado ama maxaa la dhahaa aragtidii maxaa la dhahaa isbedel weyn ku yimaado. sidoo kale vitamin B2 alif deficiency markay dhacdo waxaa dhaco waxa la yiraahdaa fatigue, daal badan oo qofka dareemaa, waa neef tuura xilliyada uu soconayo kale ama wax culus markuu qaadmaayo kale daal ayuu dareemayaa fatigue. sidoo kale vitamin B2 alif markuu yaraado waxaa dhaco waxa la yiraahdo maxaa la dhahaa pale skin, maqaarka inuu noqdo mid maxaa la dhahaa cadaan ah ama jaalle oo ekaado maqaarkiisii, melaninta ay ka dhammaato oo qofka maqaarkiisa uu noqdo maqaar maxaa la dhahaa jaalle xigeen camal ah. sidoo kale mood change, qofka in maxaa la dhahaa uu ku timaado marxaladiisii jawigiisii inuu yacni isbedel ku yimaado oo qof maxaa la dhahaa si dhanba mar walbo maqana joogaha uu noqdo. iyo sidoo kale dizziness. qodobka ugu dambe wuxuu yahay vitamin B2 alif deficiency markay dhacdo ama vitamin B2 alif u yaraado waxa uu dareemaa qofka dizziness oo ah dawaqsanaan, qofka maantana wuu dawaqsan yahay, problem badan oo ku furan, qof waxa waa isna discomfortable ah oo caajis dareemayo aad u dawaqsan. dabcan vitamin B2 alif markuu jirka ku yaraado intaas ayuu qofka bani'aadamka la soo gudboonaato, way badan tahay laakiin inta ugu muhiimsan uguna macquulsan waa inahaas. sidoo kale vitamin B2 alif maxaa la dhahaa markii maxaa la dhahaa oo qofka bani'aadamka jirkiisa uu ku yaraado waxaa dhaco waxa la yiraahdo bone deformation, in maxaa la dhahaa lafihii qofkii ay qaab nuuc kala noqdaan ama ay yaraadaan laftii oo kale ama maxaa la dhahaa koriinshihii cunuga oo kale tusaale ahaan oo kale lafihiisii eber ay noqdaan oo kale oo lafa maxaa la iska jila jilicsan oo noqdo ama cunuga si fiican xataa uu kori waayo. sidoo kale marka maxaa la dhahaa qofka bani'aadamka vitamin B2 alif jirkiisa ku yaraado RBC badan lama soo saarayo, RBC-ga ayaa yaraanaya kadibna halkaas waxaa ka dhacayso maxaa la dhahaa anemia, wax la yiraahdo anemia ku imaanayso. marka vitamin B2 alif xageen ka helnaa sourciga ama meesha vitamin B2 alif jirkeena uu kasoo galo oo maxaa la dhahaa oo nooga yimaado xagee waaye? vitamin B2 alif waxaan ka helnaa waxa loo yaqaano meat, hilibka ayaa inta ugu badan vitamin B2 alif ka helnaa. tusaale ahaan waxaan ka helnaa hilibka kalluunka, hilibka digaaga, hilibka lo'da, ariga, geela, intaasoo dhan waxaa ka helnaa vitamin B2 alif. marka insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo koobayaa. please ha iloobin inaad channelka subscribe noo saarto haddii aad youtube nagala socoto, haddii aad facebook nagala socotana insha allahu tacaala waxaan jeclahay inaad like noo saarto page-ka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.